dhegaystayaal waa su'aale Soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase anaa mooday degdegsiyuhuma waxay hiddo u leedahayba mase aadanaha kale ayay kala mid tahay si haddaba aynu u helo qayb ahaan su'aalahaas iyo kuwa la midka ahi jawaabaha ay yeelan karaan waxaynu ku qasbannahay inaan dib u milicsano dhaqankii ay Soomaalidu lahayd waagii ay xoolo raacatada u badnayd iyo ka hor in ka mid ahi intii aanay reer magaaloobin taana waxaa sida la ogyahay laga dhexeli karaa suugaanteeda gaar ahaan mahmaahdeeda maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda aan kolka isku dayo inaan soo bandhigo dulqaadka Soomaalidu inta uu la eg yahay tusaalayaal lagu garan karo ninbaa alla bari jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo reerka sabadiisa geed aan ka fogayn soo gabran jiray haddiiba nin ragga ku jira oo malaha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada isaga oo raagsanaya xeelihii hilibku ku jiray iyo dhiilihii caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahayna aan soo dhoweyn marka dambana wuu ku hadli jirayoo gaajaana laysa ee muxuu reerku sida noogu gelayaa ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa dhaqanka inay ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cudurdaar ka dhigan jiray heestii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama taasoo loogu garaabi jiray adaan kolka ku weydiine neefaf dhowra hilibkood loo bislaynaayo ninka sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee Soomaalidu dawlad may ahaan jirin qarniyo badan bay ahayd ummad aan talis dhexe lahayn in door ah baa la soo gumaystay 1960kii shalay ahaabaana ugu horraysay maamul ay u madax bannaan tahayoo habka casriga ah ku dhisan maamulkii uu gumaysigu uga tegey kolka su'aashu waxay tahay marba dadka talada loo dhiibo intee bay tahay in waxqabadkooda laga dhursugo wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene intee bay tahay inta loo dul yeesho in madaxda loo korto gobonnimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta looma wada sheegi jirin waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dari doono in dadku xor noqon doono oo qof waliba wixii uu doono uu samayn doono saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta kharaaro ah si ay u jirto waxna looga dheefo in dawladnimadu u baahan tahay shaqo adag wax soo saar waxbarasho amni kala dambayn dastuur loo hoggaansamo xeerarka degsan oo la ilaaliyo hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuqmaasuqa laga dhowro sidaas inay arrintu ahaydoo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaana degdega uu dadweynuhu calanka ka filaayey waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyey nin si weyn maansada Soomaalida loogu yiqiin waa allaha u naxariistay aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheeraa inkastoo uu reer miyi ahaa haddana wuxuu ahaa nin aad ugu warhayey siyaasadihii waayadaas dalka lagu dhaqaayey xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee lixdanadii kii ugu weynaa gareedkana loo yiqiin kol dambase SDU la baxay dabayaaqadii 1962kii aadan carab oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhaxeeya ayaa dhalaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita ayuu tuulo u dhow nin ay walaala ahaayeen kiniini uga dirsaday kii oo kiniinigii u wada ayaa ku soo noqday wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi oo cilmiyow ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiree miyay gobonnimadu nooga daraysay dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kicisay xukuumaddii ay leegadu hoggaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo hor jeeday isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag is yidhi markaas buu ku yidhi maxamedow maanta waaba gebi oo maxaa tidhi ayuu kiina ku celiyey
halkiibuu aadanna ugu mariyey gabaygiisii soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxaye dulucdiisa shishe ay ahayd gobonimadii inaan waxba laga dheefin oo haddoo la hayo iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood waa gabay dheere aan ka soo qaata tuducyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood waxaa ka mid ahaa sidii baan markaafiya u sitaa ama maraykaane sidii baan maqaar ugu gam'aa meel la ii dhigaye sidii baan makaar lagu gubtiye milic u jiifaaye sidii baan madaad dhali karsho iyo rodol u miistaaye sidii baan macaash uga gataa harag muciinkiisa sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye sidii baan masruuf uga dhigtaa midhaha toomoode sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqiiqaaye sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoonne sidii baan manjaha ugu socdaa moodharli'idii meel kale wuxuu ka danqanayaa weli sida aan waxbarasha u jirin ninkii nin dila in aan loo dilayna weli sidii hore magta looga bixinayo weli sidii waagii ingiriiska in geela ay dawladdu kii lahaa ka moora duugayso weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu uu u mootan yahay wuxuu yidhi sidii baan tacliin uga marnahay macadki diimeede sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe sidii baan macruuf kuu sugaa macallinkiisiiye sidii baan magtii uga baxshaa muuminkii dilee sidii baan miskiin tulud lahaa looga mariyaaye sidii baan haddii tuug imiro midigta loo goyne sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaaye haddii laba nin oo wada muslimna madaxda loo geeyo sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne sidii buu rumaan ugu murxaa kii maxbuusihiya sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwa lahayne kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynayo sidii buu kiniin uga mutaa maralka jiifaaya sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogaay mar kalena maantaas nimankii talada dalka hayay ayuu ku eedaynayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha had iyo jeerna ay dibadaha u sadcaalaan iyada oo aan lala ogayn wax ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn wuxuu kaloo gabayga ku soo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii soomaaliya ee buuhoodla ka taagnaan jiray in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suraa laga soo dejiyey dabadeedna madaxdii dawladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan ha layska eegtee wuxuu yidhi mooskadan ragguu duulaya ee maylka tirinaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mamardaadibaa socodka aan miiq la qabanayn sawriigna noogama mudaan madashan buuhood leh bal inteen muddo ahaan sugnaa maaxda iman doonta bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calankii mukhlis iyo haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniyahay moodayaan muunadna la saaray ma naftiinna maala u qabtaa nimanka loo miiray maashiyo haddaan mililka saro malow miyay fuuli ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo su-aashu waxay tahay dawlad 2 sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo intaas oo baahi ah inay daboosho mase waxay daaran tahay dulqaadyari soomaalida u gaar ah dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo